السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كان maanta waxaan kaga hadlaynaa 30 xikmadood oo laga yaabo inay ku anfacaan amaanad horeba u maqal. Fadlan saad noola socoto muuqaalka like saar, subscribe na saar, daawasho wacan. haddii ku bilowno xikmadeena koobaad dhageyso in ka badan inta hadlayso hadalna in ka yar inta taqaano. guulaystayaasha mar walba asxaabtoodu way badan yihiin laakiin guuldareystayaasha mar walba asxaabtoodu waa qaar xaqiiqa. khilaafku hadduu dheeraado macnaheedu waxay ka dhigan tahay in labada dhinac ee iskhilaafsanba ay khaldan yihiin. bini aadamku ma helayo cid uga wanaagsan ugana dhageysi fiican ilaahay subxaanahu wa tacaala. maxamed الغزالي wax sidiisa ku soo noqda ma jiro. intaas waa inaad fahantaa ka hor intaanad wax qurux badan u haysatay aanad ku ciyaarin. ibraahim alfiqi qaanuunka noloshaada ha ka dhigin waa inaad shaqaysataa si aad u noolaato ee ka dhig waa inaad shaqaysataa si aad u gaadho kaas. noloshu way qurux badnaan kartaa haddii aad iska dhaafto dadka iyo danahoodaba. Charlie Chaplin waad rumayn kartaa hadafkaaga oo dhan kaliya haddii aad u xidhxidhato rumayntiis. ixtiraamka dadka ixtiraamayso ma ahan inaad u baahan tahay dadkan ee waa akhlaaqdaada xataa hadday yihiin dad aan u qalmin ixtiraamkaas. saaxiibka waxaa loo yaqaanaa saaxiibka duruuf walba kula jooga ee ma ahan ka kolba say duruufta noqoto kula jooga. baro sidaad uga dhaqaaqi lahayd meel walba oo aan lagaa rabin ama aanad u qalmaynin. جبران خليل جبران way ku xiisi doonaan markii waayaan qof adigoo kale ah. جبران خليل maadaama ilaahay ku jecel yahay isaga ayaa kaa fogeynaya cid walba oo aan adiga ku jeclayn. adigu samayso maalmo qurux badan ee cidnaha ka sugin inuu kuu sameeyaan maalin qurux badan. jacaylku waa dareen cid walba taqaano laakiin ay in yar u fahansan yihiin. maxaa ka farxad badan qofka bini'aadamka ay markaanu cidna soogotinaynin cidna aanu sugaynin. محمد درويش gabadhu waa sida dalladoo kale lagama yaabo inay koonaadso ilaa aad madaxaaga kor saarayso. dadka qaar waxay samaystaan marmarsiyo si ay kaaga fogaadaan qaarna waxay samaystaan been si ay kuula joogaan. جبران خليل جبران saaxiibtinimadu waa buur rafaad badan waxaana fuulo keliya dadka oofinta leh. ha ka fogaanin marna waa saaxiibka ceebahaaga garanaya haddana kula joogay ku jecel. inaad qalbi wanaagsan tahay oo qalbi nadiif ah leedahay duni xumaatay dhexdeeda ma ahan daciifnimo ee waa geesinimo. Mahatma Gandhi ilaahay tala saaro sidoo kale albaabkaagana si fiican u xidho. dareenka ugu adag waa inaad xasuusato qof kaa tegay laakiin aad indhaha isku qabanayso sidii qof rumaysan la in laga tegay. جبران خليل marka xaalad adag ku soo wajahdo waxa kula yaraan doona dad indhahaaga ku weyna waxaana kula weynaan doona dad indhahaaga kula yara. Arsene Wenger noloshu way soconaysaa haddaa qosasho iyo haddaa uydaba ee waxba ha qaadan murugooyin aanad xamili karaynin. Andrew Carnegie nafsadaha ugu quruxda badan waa kuwaan xaqiiqda diidin xataa khilaafku hadduu weyn yahay oo meel adag marayo. haddii waxyaabaha aad samaynayso dadka kale kor u qaadayaan horumarinayaan hogaamiye dhab ah ayaa tahay. Axmed Shaqeeri waxa ugu wanaagsan dadka kuwa aan isku kaa badbedelin duruuf walbo nololeed oo ku soo wajahda. qayb ka mid ah raaxadu waa inaanad dabagelin dadka iyo arrimahooda. qayb ka mid ah adaabtuna waa inaanad dhexgelin waxyaaba aan ku khusaynin. Napoleon Bonaparte qofka noloshaada muhiimka u ahay ma ahan qofka aad dareentid joogitaankiisa ee waa qofka aad dareentid maqnaanshihiisa. ibraahim alfiqi 30 xikmadood intaasay noogu yihiin. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iiday. fadlan sii shaar gare oo la wadaaga asxaabtaada. wassalaamu calaykum.